daawadayaal ku soo dhawaada muuqaalkeena maanta waxaa idin wadaa taxane cusub oo lagu magacaabo Toshiib Someone qaybtiisa koowaad balse inta aan bilaabin janaalka subscribe saar sidoo kalena muuqaalka like saar gabadhaani waa Yenshi maanta iyadoo baska sugaysa qof baa si lama filaan ah ugu dhacay taasoo keentay inay ku dhacdo nin kale shaararkiisii ayay wasakhaysay markaasay si dhaqso ah u qabsatay tuwaal si ay u nadiifiso ninkii wuu yaabay kadibna wuu iska tegay nolosheedu si fiican uma socoto tan iyo yaraanteedii ilaa had iyo jeer waxay raacdaa baska ugu dambeeya si ay ugu tagto iskuulka iyo shaqada markay shirkadii tagtay waxay la kulantay tartan adag oo ay la gashay haweeney la yiraahdo King Mo intii lagu jiray shirkadu waxay go'aansatay inay beddesho istaraatiijiyada iyadoo u leexanaysa suuqa xuquuqda maskaxda sheekooyinka agaasimuhu wuxuu u ogolaaday inay fikirkeeda ka dhiibato cinwaanka mashruuca cusub ee sheekadaas marka hore way walaacsanayd laakiin si tartiib ah ayay kalsoonideeda u soo ceshatay waxay sheegtay inay akhriday sheeko aad u fiican oo uu qoray qoraal la yiraahdo Jishu laakiin markuu maamulaha weydiiyey magaca sheekada way ka labalabeysay inay sheegto intaas waxaa sii dheer King Mo weydiiday fikradeeda nasiib wanaag maamulaha si ku meel gaar ah ayuu u aqbalay fikradeeda wuxuuna u sheegay inay la hadasho qoraaga shaqada kadib Yenshi waxaa lagu canaantay inay mar walba soo yara daahdo kadibna way baxday si ay u raadiso Jishu waxayna si lama filaan ah ula raacday wiishkanin kadibna waxay u garaacday albaabka Jishu isagoo moodaya inay tuug tahay wuxuu wacay waardiyaasha markay maqashay inuu yahay Jishu aad bay ugu faraxday laakiin fursad looma siin inay hadasho Jishu wuxuu markaas qoray cutubka 28 ee sheekadiisa cinwaankiisuna yahay Radiant Lake Stars oo micnihiisu yahay iftiinka xidigaha la mid ah sheekadu waxay ka waramaysaa Yulu oo ah jilaa caan ah oo isku dayaya inuu nolosha caadiga ah ku noolaado laakiin taageerayaal ayaa qabta kadib Shining ayaa dad badani ku xoomayaan markaas ayaa Yulu yimid oo badbaadiyey wuxuu geeyey xeebta wuxuuna u sheegay inuu jecel yahay markay Yenshi akhriday sheekada aad bay ugu faraxday markaasay isla markiiba furtay kombiyuutarkeeda si ay uga faalooto maalintii xigtay si ay ula tartanto King Mo booska qorsheeyaha ee filimka ugu horeeya ee shirkadu ka samaynayso sheeko waxay u tagtay Jishu waxay si xeeladaysan u khiyaanaysay wiilka keena dilifiriga iyadoo tiri waxay ahay saaxiibta Jishu si ay fursad ugu hesho inay la hadasho laakiin ugu dambeyn wuu diiday intay jidka ku jirtay waxay heshay ogeysiis ku saabsan cutub cusub oo la soo daayay markan sheekadu waxay ka hadlaysaa Yulu oo ay canaananayso walaashiis Yen sababtoo ah wuxuu shaaciyey xiriir uu sameeyey wuxuu baryay muddo dheer ilaa ay ugu dambeyn cafisay intuu fasal jilitaan ah ku jiray wuxuu si lama filaan ah u arkay qof uu garanayo oo la yiraahdo Shitan taas oo ahayd macallimadiisa qoobka ciyaarka Yenshi waxay markaas wacday saaxiibteed Falling si ay u weydiiso cidda gabadhaasi tahay waxay maqashay in gabadhaasi tahay riyada Yulu sidoo kale Falling waxay sheegtay in qoraalka Jishu uu marka hore macaan yahay balse marka dambe uu murugo noqdo Yenshi ma aysan awoodin inay u dulqaadato dhammaad murugo leh markaasay go'aansatay inay qorto nooc ay iyadu jeceshahay oo aad u macaan laakiin wax kasta hareeraha ka dhacayay way isbedelayeen waxay maqashay magacyada jilayaasha oo isla kuwa sheekada ah taasoo ka dhigtay inay ka shakiso in ay u gudubtay dunida sheekada ka hor intaysan fahmin waxa socda waxay u tagtay Shian oo ay u sheegtay in Yulu uu leeyahay saaxiibad kale waxay wacday Shining waxayna ku eedeysay Yulu inuu laba wajiile yahay kadibna xariiq qoraal ah ayaa soo baxday oo sheegtay in cutub cusub la cusboonaysiiyey iyadoo argagaxsan si kedis ah ayay u riixday kadibna si lama filaan ah ayay gurigii ugu soo toostay iyadoo wareersan oo aan fahmin waxa dhabta ah ee dhacay waxay akhriday sheekadii kombiyuutarkeeda ku jirtay waxaana yaab ku noqday in wax walba ay ahaayeen sida ay hore u aragtay inta ay weli la yaaban tahay saaxiibteed ayaa albaabka soo garaacday taasoo ka nixisay waxay shiday shuma kadibna waxay u sheegtay saaxiibteed wixii dhowaan dhacay safarkeeda qarsoodiga ah ee ay u gudubtay sheekada adduunka laakiin sidee bay saaxiibteed u rumaysan lahayd arrin sidan u yaab leh markay aragtay in Yenshi ay welwelsan tahay sababtoo ah waxay ka baqaysay in shaqada laga eriyo haddii aysan xalin karin arrinta xuquuqda qoraalka saaxiibteed ayaa dejisay dabadeedna huruday maalintii xigtay Yenshi waxay aragtay laba qof oo murmaya waxayna u tagtay si ay u kala qabato laakiin hooyada way hadal badnayd markaas ayay ilmaha weydiisay runta taasoo ugu dambeyn keentay inay xaaladda xalliso kadibna waxay aragtay Jishu balse ka hor intaysan wax weydiin wuxuu ku yidhi maya markay ka hadashay xuquuqda sheekadiisa si lama filaan ah Yenshi waxay gacanteeda saartay afkiisa si ay u aamusiiso markaasay garatay in ninkani yahay kii ay hore ugu dhacday baska agtiisa Jishu wuxuu u sharxay sababta uusan sheekada u iibin wuxuu ka baqaayay in shirkadaha filimada ay si xun u beddelaan ilaa ay noqoto mid aan la garan karin markay taas maqashay waxay u xaqiijisay inuusan walwalin oo aysan beddeli doonin sheekada balse ma haysanin wax damaanad ah sidaas darteed waa ay iska daysay markay shirkadii ku noqotay maamulaha ayaa canaantay sababtoo ah si fudud ayay uga tagtay mashruuca markaas King Mo ayaa isla markiiba dalbatay shaqadii maamuluhuna wuxuu yidhi qofkii qaban kara ha qabto iyadoo niyad jabsan Jishu ayaa wacay oo dalbaday inay kulmaan Yenshi waxay moodaysay inuu aqbalay inuu sheekada siiyo balse dhab ahaantii wuxuu doonayay magdhow isagoo u malaynaya inay iyadu burburisay xirmadiisii taasi aad bay uga xanaajisay Yenshi heshiiskii ma aysan
helin haddana waa inay lacag bixisaa markaas Fuing ayaa wacday iyadoo leh Jisho wuxuu doonayaa inuu sheekada dhameeyo iyow isagoo siinaya lamaanaha jecel dhammaad murugo leh markay xasuusatay muuqaalka maamulaha oo shaqada ka eriyaya iyo King Mo oo ku qoslaysa Yinshi waxay tiri isku day inaad Jisho ku qanciso inuu bedelo dhamaadka kadibna waxay gashay gudaha si ay u qorto waxaana mar kale ku dhacay u gudbidda dunida sheekada halkaas ayay ku aragtay Shining iyo Shin oo wada hadlaya halka Yulu uu wadada marayay markay aragtay baabuur ku soo socda si degdeg ah ayay ugu oroday si ay u badbaadiso balse si daran ayay u dhaawacantay kadib xariiqda ayaa soo baxday mar kale balse markan waxay dooratay no update waxaana isla markiiba lagu celiyay waqtigii hore markan iyadoo waayo aragnimo leh way awooday inay baadiso Yulu inkasta oo ay dhaawac yar ka gaadhay gacanta kaas oo iskiis u bogsaday dibna waxay tagtay shirkad kale oo aad ugu eg shirkadeedii dhabta ahayd xitaa waxay la kulantay saaxiibteed iyo maamulaha laakiin markan maamuluhu aad buu u naxariis badnaa intay wada hadlayeen si lama filaan ah ayay u noqotay maamule markay dadka hageysay nin si dhab ah ugu Jisho ayaa soo muuqday iyadoo argagaxsan way oroday waxay ka baqday inuu ogaado waxa dhacay waxay wax ka beddeshay sheekadiisii laakiin markan doorkiisa wuxuu ahaa nin labaad oo taageere ah maamulaha shirkadda ayaa guul weyn gaaray dhinaca kale bosan ayaa la murmaya Fongyen oo ku saabsan Yulu iyo Jining oo aan raacsanayn fikradooda waxay si adag u diiday Fongyen markaas Jisho ayaa yimid oo murankii joojiyay Yinshi waxay xasuusatay in cutubka xiga uu ahaa midka uu doorka ninka labaad noqdo mid xun sidaas darteed waxay isku dayday inay Jisho xafiiska ku celiso iyadoo adeegsanaysa xeelado kala duwan si uusan u bixin xitaa waxay isku dayday inay isticmaasho beauty trap balse wuu diiday intaas waxaa sii dheer dabanadeeda waa la qabsaday sawiro fool xun ayaa laga qaaday Jisho wuxuu u muuqday mid aan raali ka ahayn Yulu halka Yulu uu weydiiyey Yinsha kadibna si degdeg ah uga tagay goobta Yinshi waxay xasuusatay in marxalad isfaham la'aan ah ay ku jirtay sheekada sidaas darteed waxay rabtay inay Yulu joojiso laakiin Shining ayaa istaagtay markaasay ogaadeen inaysan wax dhaawac ah qabin kadib Yinshi waxay iska dhigatay inay jiran tahay si ay ugu soo dhawaato Jisho balse marar badan ayuu iska riixay markay taas aragtay waxay ku qasbanaatay inay u tiraahdo si cad in ay jeceshahay xitaa waxay ku qaylisay shirkadda horteeda dadkii oo dhanna waa ay yaabeen maadaama uusan lahayn door kale Jisho waa inuu iyada geeyaa isbitaal intii ay jidka ku jireen si aysan dhakhtar u tegin waxay iska dhigtay inay matagayso oo way oroday markaasay si lama filaan ah u aragtay Yulu oo la socota Shian sidaas darteed si degdeg ah ayay raacday waxay xasuusatay in marxaladan sheekadu ay ahayd mid qof qarsoodi ah sawiro ka qaadayo Yulu markaas ayay si dhaqso ah u heshay nin sawir qaada ah waxayna ku qasabtay inuu siiyo kamaradiisa si ay u tirtirto sawirada markay taas samaysay way oroday laakiin waxay si lama filaan ah ugu dhacday Jisho oo iyada raadinayay ninkii sawir qaadaha ahaa aad buu u xanaaqay sababtoo ah waxay tirtirtay sawiradiisii markaas ayay Yinshi isticmaashay karate job si ay ugu cabsi geliso markay Yulu iyo Shian baxeen marxalada xigta ee sheekadu waxay ahayd inay tagaan maqaaxi si ay wax u cunaan sidaas darteed Yinshi waxay Jisho ku qancisay inay halkaa wada aadaan sida la filayay waxay halkaa kula kulmeen Yulu daqiiqado kadib Shining ayaa sidoo kale timid kadib Jisho waxaa la weydiistay inuu kaashado Shitansi uu macallin ugu noqdo Shining markay aragtay in xaaladdu si xun u socoto Yinshi waxay isku dayday xeelad kasta mar waxay iska dhigatay inay ku dhacday Shitan marna inay murugaysan tahay sababtoo ah Jisho madaneeyo markaas ayay biyo ku shubtay Jisho waxaana wax walba noqdeen kuwa ama kaag xariiqdii caanka ahayd ee chapter update ayaa mar kale soo baxday markan waxay dooratay Yes waxay ku noqotay dunidii dhabta ahayd laakiin waxaa yaab ku noqday in dhammaan ficiladeedii aysan waxba ka bedelin nuxurka sheekada markaas saaxiibteed ayaa soo sheegtay in ay isfureen iyada iyo ninkeeda Shu kaasoo sidoo kale wacay Jisho si uu ula hadlo labadoodii waxay isku canaanteen si aad ah ilaa ugu dambayn Yinshi iyo Jisho ay ku yiraahdeen kala taga laakiin labadoodii way isdifaaceen ugu dambayntiina way iscafiyeen oo dib isugu soo noqdeen iyagoo kulmay intay ay jidka ku jireen markaas Jisho keligii ayuu gaariga raacay si uu guriga ugu laabto laakiin si kama ah ayuu u qaaday boorsadii Yinshi intii uu waday wiilkii keena dilifiriga ayaa soo wacay si uu uga cudur daarto in uu maalintii hore khalad sameeyey sidaas darteed Jisho wuu laabtay si uu Yinshi u soo qaado wuxuu mar kale ugu sharxay sababta uu u diiday inuu la shaqeeyo shirkadeeda Yinshi way isku dayday inay mar kale ku qanciso laakiin weli waa diiday markaas Jisho ayaa gaariga joojiyey oo ka degay si uu wax uga soo qaato boorsada dambe Yinshi waxay u malaysay inuu doonayo inuu xisaab la tago balse dhab ahaantii wuxuu soo qaatay kamarad si uu u daawado xidigaha roobka Yinshi aad bay u faraxday markay xidigihii soo muuqdeen gacmaha ayay isqabsadeen si ay u samayso rabitaan halka Jisho aan wax falcelin ah ka bixin markay taas aragtay Yinshi waxay soo saartay alaabta xumbada lagu ciyaaro si ay u farxad geliso maalintii xigtay Yinshi waxay Fuing ka codsatay inay wacdo Chu si ay u ogaato sida loola saxiixdo heshiis Jisho wuxuu yidhi Jisho wuxuu jecel yahay hab jilicsan ma aha mid adag dhanka kale Jisho wuxuu ogaaday in nuxurka sheekadiisa la bedelay oo uusan awoodin inuu wax ka saxo ugu dambayn akoontigiisii waa laga saaray wuxuu wacay Fuing si uu uga hadlo arrintan kadibna wuu soo ceshaday kii uu dib u furay si uu wax u saxo labadoodii isaga iyo Yinshi labaduba waxay u gudbeen gudaha sheekada Jisho wuxuu hareerihiisa ku arkay dunida sheekada isagoo garan la waxa dhacay kadib si lama filaan ah ayuu u maqlay fikirada Yinshi markaas
markaas ayuu garwaaqsaday in ay dhab ahaantii u gudbeen sheekada ayna iyadu tahay tan beddeshay faahfaahinta laakiin halkii uu xanaaqi lahaa wuxuu go'aansaday inuu la shaqeeyo kadib wuxuu u sheegay Yinshi inay ku laabato shirkadda si ay halkaas uga sii wado qorshaha ku arkay inay weli iska dhigayso oo aysan runta sheegin Jishu wuxuu ku yiri inay baabuurka wadato si uu si fudud ugu su'aalo wixii uu doonayo labadoodii markaas waxay gaareen shirkadda halkaas oo Jishu si weyn ugu yaabay sababtoo ah shirkaddan waxay aad ugu egtahay shirkaddii dhabta ahayd ee dunida uu hore u joogay iyadu waxay si joogto ah uga baryaysay inuusan shaqada ka eryin xitaa waxay iska hortaagtay albaabka xafiiska Boshian si uusan u gelin markii uu gudaha galay wuxuu weydiiyey Bosan arrintaas wuxuuna qaatay xaashida macluumaadka iyo faahfaahinta shaqaalaha ee shirkadda ku noqday xafiiskiisa wuxuu eegay sawir yaalay miiskiisa wuxuuna dareemay murugo yar dhanka kale Yinshi way argagaxday markaasay u tagtay maamulaha Jian si ay u weydiiso in la eriyey iyo in kale waxay ogaatay inuusan eryin markaasay sheegtay inay rabto inay sheekada u gudbiso balse dhab ahaantii waxay doonaysay inay si qarsoodi ah u eegto faahfaahinta shaqadeeda Jishu ugu dambayn uu daalay wuxuuna qaatay macluumaadkeeda su'aal buu weydiiyey kadibna si fudud ayuu uga saaray xafiiska soo baxaysa way sii eegaysay isaga waxayna maqashay saaxiibteed iyo qof kale oo ka hadlaya haddii ay suurtagal tahay inay Jishu la socoto markii hore arrintu waxay u muuqatay mid macaan laakiin markii ay xasuusatay in sheekadu u dambayso si murugo leh way ka taxadartay markii wakhtigii shaqada dhammaaday Jishu ayaa weydiiyey sida ay guriga ku tegayso laakiin iyadu waxay iska dhigatay inay baska raacayso markuu arkay wejigeeda wuu aamusay oo wuu tegay laakiin tani waxay siisay fursad ay ugu gasho qolkiisa si ay u eegto faahfaahinta shaqadeeda markaasay si lama filaan ah u argagaxday marka xigtana sheekadu waxay u guurtay Yulu oo wax karinaya markaas dab ayaa si lama filaan ah u kacay taasoo hurdada ka toosisay Yani way kacday waxayna tagtay supermarketka si ay wax u soo iibsato markay aragtay Jishu aad bay u baqday oo isku dayday inay iska leexiso Jishu wuxuu u sheegay inuu wax u iibsanayo si uu kooxda filimka ugu booqdo isagoo ula jeeday inuu iyadana la tago si ay uga badbaadiso kharashka baska iyaduna waxay ku adkaysatay inay la socoto markaas Shining ayaa u timid inuu Yulu dejiyo kaasoo horay maamuluhu u canaantay markaas Jishu iyo Yinshi ayaa sidoo kale yimid Yinshi waxay siisay Yulu cunto ay rabtay inuu xoog ku helo balse nasiib daro wuu neceb yahay cuntadaas sidaas darteed way soo urursatay cuntadii waxayna fadhiisatay meel gees ah si ay keligeed u cunto maadaama aysan rabin in ay khasaariso cuntada kadibna waxay u baahatay biyo si lama filaan ah gacan ayaa u furtay dhalada biyaha waxay ahayd gacanta Jishu wuxuu weydiiyey sababta ay u jeceshahay lamaanaha Yulu iyo Shining Yinshi si geesinimo leh ayay u tiri waxay jeceshahay geesinimada Yulu oo aan ka cabsan warbaahinta isla markaana si furan u jecel Shining ka hor intaysan hadalkeeda dhamayn way oroday si ay dabdamiska u keento ka hor inta uusan dabku cid dhaawirin gaasimaha ayaa canaantay laakiin nasiib wanaag Jishu ayaa mas'uuliyadda dusha saartay wuxuu go'aansaday inuu gurigiisa geeyo sababtoo ah meel ay degto ma haysan waxay iska dhigtay inay murugaysan tahay iyadoo sheegtay in lagu khiyaameeyey guri laakiin Jishu hore ayuu u ogaa maadaama uu akhriyey fikiradeeda haddana wuu ogolaaday inay isku meel degaan maadaama uu yahay nin maalqabeen ah wuxuu iibsaday dabaqdhan wuxuuna siiyey qol u gaar ah wuxuu la fadhiistay Yinshi si uu ula ekaysto wax yar kadibna wuxuu u laabtay qolkiisa Yinshi aad bay ula yaabtay raaxada iyo quruxda guriga kadib walaasha yar ee Jishu ee ku jirta sheekada ayaa timid waxayna ku tiri Jishu inuu joojiyo jacaylka ka dhexeeya Shining iyo Yulu markay taas maqashay Yinshi way faraxday waxayna dood adag la gashay Jifei oo ah walaasha Jishu maalintii xigtay Jifei waxay tagtay shirkadda si ay u ogaato cidda sida qarsoodiga ah u jecel walaalkeed muddo 10 sano ah halkaasna waxay si lama filaan ah ugu aragtay Yinshi inkastoo ay murmeen maanta Jifei waxay weydiisay Yinshi haddii ay u baahan tahay caawin si ay ugu dhawaato Jishu Yinshi si lama filaan ah ayay u weydiisay sababta Jifei u caawinayso ma keliya si ay u hesho qof kale oo la maareeya walaalkeed si uusan isaga si adag ula socon iyada Jifei way qososhay waxayna tiri ha si uu u helo qof kale oo uu dareenkiisa u jeediyo markaas Jifei si ku meel gaar ah ayay ula heshay laakiin markii ay ogaatay in Yinshi ay tahay taageeraha weyn ee lamaanaha Yulu iyo Shining si degdeg ah ayay go'aankeeda uga noqotay ma aysan doonayn inay mar dambe caawiso xitaa waxay tiri waxay u sheegi doonto walaalkeed Jishu si uu shaqada uga eriyo markaas ayaa Jishu soo baxay isagoo yiri Yinshi waa kaaliyahayga wuxuu si toos ah ugu jiiday xafiiskiisa inkasta oo Yinshi ay u timid ujeedo kale haddana waxaa khasab ku noqotay inay shaqayso waxay isku dayday xeelado badan oo ay kaga baxsato laakiin dhammaan way fashilmeen markii ay dibadda u baxday waxay indhaha rogtay iyadoo ka fikiraysa siyaabo ay ku qancin karto Jishu inuusan rabin inuu sii haysto si ay uga fogaato shaqada kaaliyaha waxay si ula kac ah ugu khalday xogta ay u gudbisay laakiin Jishu maadaama uu akhriyi karo fikirkeeda si degan ayuu u xusuusiyey khaladaadkaas dhanka kale Fongyin waxay madax xanuun ka qabtay arrinta jacaylka Yulu sababtoo ah taageerayaashu si xooggan ayay uga soo horjeedeen waxay ku hanjabeen inaysan taageeri doonin filimka Yulu haddii uu weli xiriir la leeyahay Shining waxay u samaysay koob qaxwo ah iyadoo isku dayaysa inay erayo macaan ku qanciso laakiin Yulu
wuxuu fahmay ujeeddadeeda, markaas ayuu ku qasbay inay iyadu cabto dhammaan qaxwada, taas oo aysan u adkaysan karin. Markaasay si ula kac ah ugu shubtay dusha isaga, laakiin si lama filaan ah wuxuu ahaa mid aan caroonin. Dhanka kale, Sister Yin waxay Yulu ku tiri inuusan sii xiriirin Shinin, sababtoo ah xaaladda noocaas ah waxay burburin doontaa sumcadiisa, waxayna talo siisay inuu Shinin ku qanciyo inay ka tanaasusho doorka jilaha haweeneyda hogaamisa. Yinshi markaas waxay qaaday koob biyo ah, waxayna u tagtay Jishu. Waxay xasuusatay in markii hore markay biyaha ku shubtay isaga ay xariiqdii transmigration line ay soo muuqatay, sidaas darteed iyadoo dhiiranaan ku jirta mar kale ayay biyihii ku shubtay. Nasiib wanaag wuu ka leexday. Markay aragtay in aysan ku guulaysan si ula kac ah ayay isku jiidisay oo isku dayday inay dhunkato, laakiin wuxuu ka celiyey farihiisa. Laakiin Jishu maadaama uu akhriyi karo fikiradeeda si buuxda ayuu u fahmay, wuxuu siiyey koob biyo ah, wuxuuna yidhi hadda adiga iigu shub. Iyadu waxay u malaysay inuu aad u xanaaqay, markaasay biyihii iyada isku shubtay oo raaligelin siisay. Jishu ugu dambayn wuu daalay, wuxuuna ku yidhi bax.